mudana madaxweyne iyo wasiiryaal madaxweyne ku xeen waxaanu ku soo dhawaanaynaa tiknikadan oo aan tiknika qabiil ah haatan aan rabnaa inaan ku wareejino galmudug halganka Soomaalida iyo dib u xoreynta iyo midnimada inay ka qayb gasho waxa way ku soo dhawaada ciidankii iyo tiknikadiiba waynu ku soo wareejinaynaa waxaan jecelnahay dadka naga dambeeyay inay ku daydaan waa laga baxay qabiilnimadii iyo sirriixii Soomaalinimo iyo dowladnimo hadda loo diyaar gareysan yahay maanta in ay ka mid noqdaan processkii iyo qorshihii socday oo ilaa ay ka soo bilowday gaalkacyo ilaa Hobyo oo ahaa in asaasidii inay u noqdaan bilow moogta daraawiishta galmudug marka aad bay odayaashu ugu mahadsan yihiin waxaa jirta xirooyin kale oo ereyadan aan ka samayn doono maalmaha soo socda oo ciidankani uu bilow u noqon doono ciidamadan maanta waxa wareejiyay gaadiidkan waa beesha Reesiyad ee Balanballe ereyadan degta runtii waxay bilow u noqdeen waqooyiga galgaduud dhulka la yiraahdo ciidamadii ka xaroon lahaa ayay bilow u noqdeen waana ku mahadsan yihiin waxaan rajaynaynaa bilowgaas in ciidamada kale oo ereyadan joogay gaadiidka kale oo ereyadan joogo dhan inay iyaguna maalmaha soo socda ay sidaan oo kale wareejintooda aan uga qayb galno ciidanka waa la diiwaan gelin doonaa diiwaan bay meesha ku galayaan gaadiidka waa la diiwaan gelinayaa gaadiidkan wax kale loo isticmaali maayo ujeedadii loo abuurtay waxay ahayd oo loo samaystay in dad reer galmudug oo kale in maaragtay dagaalo iyo dhibaatooyin jiray iyo wax la tabanayo reer galmudug difaac iskula jiray ahayd isugu jira ayagu hadda waxaan rabnaa in gaadiidka iyo ciidamada galmudug joogo dhan aysan difaac dambe ayagu isku gelina in cadawga guud oo galmudug ay leedahay iyo xuduudaheeda iyo dhulkan nala ka haysto weyn oo kooxaha al-shabaabka iyo argagixisadu ay haystaan in halkaas aan xooggeena ku wajahno ciidamadan dhalinyarada waxay heli doonaan xaquuq waxay heli doonaan darajooyin ciidan oo ay heer galmudug ah iyo dhammaan wixii xaquuqaad oo ka maqan caafimaad iyo daryeel bay heli doonaan cunno ay heli doonaan wax walba oo qof bini'aadan u baahan yahay bay heli doonaan farxad ayay noo tahay in ciidamada darwiishta galmudug diiwaangelintooda ay waqooyiga galgaduud ka bilaabato gobolka mudug shaqo fiican baa laga soo qabtay haddana galgaduud baa mataqaanaa meel fiican noo maraysa cadaado meel fiican bay maraysaa gurceel waa ku sii soconnaa Balanbal waatana marka aad baan reer Balanbal idinkaga mahad celinaynaa hawshan aad noo bilowdeen galabta waxay noo tahay runtii fursad weyn maalin weyn bay noo tahay inaan ka soo qayb galnay isugu nimid qaybo ka mid ah hubka beelaha reer galmudug ay haystaan in galabta lagu wareejiyo ciidanka daraawiishta galmudug waxay ahayd siyaasadda cusub ee galmudugta cusub in hubka ay beeluhu haystaan oo ay sida gaarka u isticmaalayeen oo in badan amniga khatar ku ahaa siyaasaddii iyo go'aankii laga qaatay loo hoggaansamay lagu dhaqmay meelo badanna la soo wareejiyey hubkii galabtana aan beel ka mida beelaha reer galmudug ay wareejisay hubkii ay gacanta ku haysay waxay noo tahay guul laga gaaray istiraatiijiyadii iyo qorshihii galmudugta cusub waa u mahad celinaynaa beesha odayaasheeda dhaqanka mas-uuliyiinteeda waxgaradkeeda sida ay bilowga markii dhinaca waqooyiga galmudug ama waqooyiga galgaduud la yimid ugu bilaabeen si gaar aan ugu mahad celinaynaa waxaan rabnaa ciidamadan sharafta badan dhallinyaradan runtii shaqooyinka beelaha ku kala dhex jirtay inay tababartaan dishibliin iyo nidaam ciidan qaataan hubkoodana ay amniga ugu adeegaan galmudug meeshii ay qayb ahaayeen berri ayagoo ciidan ah darajo leh xaquuq leh tababaran ayay galmudug amnigeeda si guud uga qaybgelayaan ka shaqaynayaan insha allah annagana waxaan ballan qaadaynaa iyagoo ciidamadii xaquuqdii ciidamada oo dhan haysta oo leh inay shaqeeyaan insha allah waa dallacayaan xaq bay yeelanayaan
ciidamada nabadgelyada ka mid noqonayaan meeshii ay layska hormaan jiray ama layska hor keeni jiray iyagoo amniga ka wada shaqaynayo hal ciidan ah oo hal haybo galmudug leeraa ah oo hal ujeeddo leh ayay shaqaynayaan